hore waxaan u baranay qaabka lacagta bangiga loo geliyo maantana waxaan idin tusayaa qaabka lacag qof aad ugu diri karto lawyer-kaaga ama shirkad lacag kuugu leh ama qof saaxiibka lacagda u diraysid soo raac xasan soo raac meeshan waxaa ku qoran sida arkayno konta awzuuga meeshan haddii warqado laga dalbado oo job center warqado ka dalbado ama socialka warqada inta laga soo saaraa laakiin hada warqadina soo saar martaas waa easy waa gelinaysa automatic warqadaas soo saaray laakiin hada waxaan rabaa inaan wax waa qaabka lacagta loo diro adoona marka dadku waxay sameeyaan warqada soo qaataan way buuxiyaan dadka bangiga dhahan loo dira adii marka ma u baahnid marka fadlan waxaa hubisaa meesha inay ku qoran tahay supervising konta zuuga macnaha qaas waxay u tahay dirista waxaasiyo option badan ay leedahay anaga waxaan tageynaa supervising marka inta waxaan gelinaynaa magaca qofka aad u diraysid kaba soo qaad xasan wax u dira kaarka magaca ku qornaa la rabaa magaca qofka iskale aad u diraysid magaciisa koowa saddexaad inaad ku qorto kaarkiisa ugu qoran yahay ay baa numberkiisa gelinaysaa inta lacagta aad diraysid 5 euro hadday tahay 100 euro hadday konton tahay haddii lawyer aad u diraysid ama shirkad aad u diraysid lambar ay jirgooni ay ku siinayaan sababta lacagta aad u diraysid halkan aad gelinaysaa haddii sabab ay jireen oo qof istaqaanin asxaab ama ehel aad u diraysid bas waxba ma gelinaysaa halkan lacagta qiimaad gelinaysaa inta wax ma ku taabanaysid waxa leedahay bishtii dugun hada ana macnaha ma dhihi karo because wixii ma gelinin qof aad u dir hada korka ma hay kaar kala qof magaciisa inta aad gelimahay hada waxaan aad geliyo laakiin waa idin tus doonaa ana toos aan mar wax aan diray oo diyaar ah inaan wax diro waa idin tus doonaa qaabka loo diro marka halaan inay ku filantaa tusaale ayaan filayaa haddii casharkan ka faa'iideysto fadlan subscribe noo dheh channelkeena sida ay nabadgeliyo khayr isku ognaay mac salaama